isbogsi isbaaradu waa imaanay dharka noo soo qabo. ma waxaad rabtaa walaal inaad nugu qancisid inaad ka mid tahay qolada midigta oo aad nala jirtidna ma waxaad garka u daysa weyse walaal si aan u dareenno adig iyo gaalka farqiga idin dhexeeya. الله وكيل يأهل الله واحد قرأ مسيني أدي أوين هذا حتى واحد كم فعلين لكن إلهي أيام هذا سكالي يا أود يوين أصومنات فضلك على درتيس هذا وان أبورتي وحان استعماله مك داود قرك وقت كدبنا وحان يلندونا قرك أو كالي بس وقت إسي دليو بس جوجي waxba tartarinay dareenkii maskaxdii wixii ii sheegaya in aad adiga u dhaqmaysid sida kuwa qadariye soo dhaweeyna kana hadlan isla simida rag iyo dumarka cadaalad iyo xurriyada ilaahay ayaan kama galay baqtiyo aamus. bal eeg ninkan fiiri muuqaalkiisa indhahaga ku arag bal fiiri ninkan dhowrsan ee sharafta leh. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. fiiri sida iimaanku uu qurux badan yahay quruxdiisa arag fiiri taqwadiisa iyo xalaal quudashadiisa. dareenkayga iyo aqligayga waxay ii sheegayaan inaad adiga dhalatay qolada bidixda oo aadna ka mid tahay. ilaahay weyn ayaan ku dhaartay aniga maalintii hooyada ay dhashay waxaan ka mid ahaa qolada midigta aniga waan necbahay qolada bidixda aslan aniga waxaan ilaahay ka baryaa in la dhiso dowlad weyn oo islaami ah sida dowladani laakiin wax walba doonista ilaahay ku dhacaan. haddeertaan waxaa kaa beerinaa shay kasta iyo xaajo kasta. sidee ma waxaad baaraysaan dhiigayga sababna indhahaaga waxba kuma aragtidee kaalay walaal wada oo baara. السلام عليكم. هلا برجيكم البصلات محمد راحت. fiiri muuqaalkiisa fiiri dadka noocan oo kale ah dadkan waxay noo celinayaan boqolaal sano ka hor waana dadka noo diidan inaan dhisano dowlad islaami ah. kuwaani waa kuwa lunsan walaalkii qaaliga ahaa waxaan ku hanuuninaynaa wadada toosan ee wanaagsan waxaan u furaynaa indhahooda wadada hidaayada iyo taqwada iyo wanaaga. waxba ka baqin walaal walaalaha gudaha ku jiro ayaa indhahooda iyo aragooda u furi doona iyo ashyaa kale ha baqin walaal. walaal meeshaad ka celinayd miyaad ku dareysaa ka war hadduu annaga nagu xanaaqo. adiga maxaa kaa galay gabar yahay waxaaba yaab leh sidaa afkaaga u furays iyo hadalka aad ku hadlaysidba horta yaa ku ogolaaday inaa hadashid. بسيطة يا أخي basiid waa walaal بسيطة. basiid iska daa waa dumare iska qalbi jilcayihiin iska daa. wallaahi inaysan basiid ahayn bal waa arrin weyn miyaadan ogayn inuu codkeedu yahay cawro sidee ugu ogolaa karnaa inay hadasho. beri waxa ay naga dalban doontaa inay akhriso kutub beri kadibna waxa ay dhegaysan doontaa heesaha ilaahay ayaan ka magangalnee kadibna waxa ay turjumi doontaa musalsal turki oo cod lagu fasiray ilaahay baa og waxa ay samayn doonto intaas kadib ma aha mid fudud oo fudud. ma haysaa karbaash ama ul caadi ah waxaa igu waajib ah in aan ciqaabo tumane ugu yaraan 85 jeedal. ألدع. لا يا ma أخي istaash hala الأمر لا sabir يستاهل. jaala. istaahishee aamus doqon gardaystaa tahee way istaahishaa waxa ay istaahishaa intaas iyo in la mid ah. waa kuma kabiirkaaga yaah waa kuma kabiirkaaga abulbaraa ama sayfu shaam ii jawaab. lacnad korkaaga ahaatee idinka iyo fududaysigiina ayaana soo gaarsiiya meesha maanta marayno waxaana noo diiday inaan dhisano dowladeena wanaagsan ee islaamka ah. jooji walaal qaata xorriyadiina mashaakilkiina guriga ku xalista. maya kun jeer maya mushkiladeyda ma ahaanin isbaarada aan taaganahay mushkiladeyda waxa ay noqotay mid adiga kula jirto idinka iyo fududaysigiina arrimaha waaweyn ayaana soo gaarsiiyey maanta meesha aan marayno.
ilaahan kugu dharshay qaado xurriyadaada mushaakilkaagana guriga ku xaliso maalintana ha kuu wanaagsanaato ma tagaayo laakiin waan ku hor istaagsanaan doonaa hor istaag waanu kuu soo laaban doonaa mar kale si aan kuu xisaabiyo xisaab culus